marka hore waxaan u hambalyeynaa xilwaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku guuleystay ansixinta xukuumadda cusub ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. labo wada shaqeynta wanaagsan ee dawladda Koonfur Galbeed ay la leedahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada kale iyo hay'adaha beesha caalamka. saddex mideynta isku xirnaanshaha shacabweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo horseeday deganaansho siyaasadeed. afar dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku guuleystay ayada oo ka faa'iideysanaysa cafiskii hore dawladda federaalka Soomaaliya ku baaqday in ay waan la gasho hogaamiyihii labaad ee hore ee ururka Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Robow taas oo dawladda federaalka Soomaaliya gacan ku siisay. qodobadaas waxay ahaayeen qodobada arrimaha siyaasadda ee Koonfur Galbeed ee ku guuleystay. arrimaha amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku guuleystay tababarida qalabaynta ciidamada booliska gaarka ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya degmooyinka qaarkood loo dhameystiray tababarida iyo agabka ayadoo degmooyinka harsan abaabulka ciidan meel fiican u marayo. labo dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku guuleystay inay sameyso xarun lagu dhaqan celinayo dhalinyaradii la maran habaabiyay ee ka soo goostay ururka Al-Shabaab. saddex dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay sugidda ammaanka magaalooyinka ay maamusho. annaga oo uga mahad celinayna dadaalka ay dawladda federaalka u gashay sugidda ammaanka guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda ayaa waxaan u soo jeedinaynaa inay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gacan ku siiso furitaanka wadooyinka caasimadda Muqdisho ku xira Baydhabo iyo Baraawe isla markaana xalkama dambeys laga gaaro dagaal beeleedyada ku soo noqday gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan jiida number 50 iyo Marko kaas oo ay ka faa'iideysanayaan qolada nabadiidka.